saaxiibada qaaliga ku soo dhawaada sheeko aad u la yaab badan. Maalintan waxay bilaabatay xilligii boqortooyadii Roomaankii hore. Boqorkii waagaas ee Roomaanka ahaa oo la oran jiray Claudius ayaa kala fogeeyay wiilasha iyo gabdhaha gurigooda iyo kulankooda, wuxuuna ogolaaday oo keliya habeenka dabaaldega boqortooyadiisa in gabadh waliba warqad uu ku qoran yahay magaceedu sanduuq yar ku rido, kadibna sanduuqaas ayaa wiil waliba warqad kala bixi jiray. Haddaba sidaas ayuu ku raadsan jiray inanta magaceedu ku qoran yahay. Kadib inta xafladdu socoto ay wada joogi jireen halkaas ayaa si nasiib ah habeenkaas qofkii calool gala uu ku dhalan jiray. Haddaba sanadka intiisa kale ma ay kulmi jirin ilaa laga gaadho dabaaldega dambe iyo sidoo kale cidda nasiibku isku keeno. Sheekadan jacaylka ah een caadiga ahayn maxaa hawada Hindiya looga saaray guriga jacaylka ee Taj Mahal oo halis ugu jira inuu burburo. Boogii jacaylka ee buuqa abuuray. Sababta boqorku sidaas u samayn jiray ayaa ahayd in uu gali jiray dagaalo badan, dagaaladaasna uu u baahnaa askar badan oo rag ah. Sidaa darteed waxa uu rumaysnaa in haddii uu guurka fasaxo inaysan raggu dumarkooda iyo cidda ay jecel yihiin ka tegi karin, taasna ay keenayso in nin waliba uu dagaalka ka baaqdo. Image caption waa maalin u gaar ah guud ahaan dadka iyo dalka reer Romania. Meelo badan oo ka mid ah dunida ayaa laga xusaa maalintan gaarka ah, laakiin habkan oo ka mamnuucay guurka uu xal u yahay in nin kasta oo hore ka galo dagaalka maadaama aanu waxba ka tegaynin. Muddo kadib waxaa soo baxay wadaad Valentine la yiraahdo oo si qarsoodi ah isugu goorin jiray wiilasha iyo gabdhihii Kiristaanka ahaa. Muddo kadib ninkaas waa la xidhay. Waxaa la sheegay in jirdil iyo ciqaab jeelka loogu dhex geystay awgeed oo u dhintay 14kii bishii Febraayo. Ninkan ayay dadkii xaaladiisa la socday u yaqaanaan shahiidkii jacaylka. Baadarigii Kiristaanka ahaa ee Pope Classic oo diinta Kiristaanka ayaa sanadkii 496 miilaadiga si toos ah u aqoonsaday in maalintan la xuso sanad walba 14 Febraayo maalinta jacaylka dunida, waxaana haatan Romania ay ka tahay maalin u gaara guud ahaan dadka reer Romania. Haddaba saaxiib, channelkan subscribe, like, share nagu qabo si aad uga heshid sheekooyin iyo qisooyin ku xiiso geliya iyo wax kasta oo adiga ku xiiso gelin doona. Mahadsanidin.